بسم الله الرحمن الرحيم وولاش رقية بسم عبدي الله ربطو إن الرحمن إذنك لهذا الرحيم. الشو إن maanta governorka Minnesota amar uu soo rogay oo ah in guryaha la joogo marka waxaan rabay inaan wax yar qaas ahaan waalidiinta inaan u sharxo بسم shaashada الله sidaad الرحمن ugu الرحيم الحمد لله jiidaan والصلاة والسلام على رسول الله. informationkiyo english ahaa idiin soo dhigay soomaaliya insha allah tacaala idinku sheegi doonaa stay at home order somali language waayaan ku iri waxaan kaloo ama meesha ugu jeedaan taariikhda uu bilaabanayo waxaan waa beri dambe hadda berito waa khamiis hadduu ilaahayna gaarsiiye march 26 27ka march ilaa iyo april 10 ayuu soconayaa marka dadka qaar baa bandow miyaa iyo waxaas dhahaya bandow ma aha laakiin waxaa banaanka bixi karo dadka keliya u baahan waxyaabaha daruuriga ah taariikhdaas aan soo sheegay waxaan kaloo rabaa in aan ku xijiyo oo muhiim ah ayadana amarkaas oo ah guriga in la joogayo jimcada laga bilaabo 2 isbuuc waxaa kaloo jirto in ilmihii iskuulka ay ka joogeen guriga joogeen distance learning wax la dhaho u bilowday macallimiintii computerka iyo ay kala xiriirayaan cuntadii la siin lahaa ay kasoo qaadanayaan meelaha iskuulka u dhow iyo community centeradoo kale sida hadda Brian Coyle iyo hadda laga dhigi rabaa marka March 27 ilaa May bisha March 27keeda ilaa May 4teeda waxaa socon doona distance learningka mar labaad waxaan rabaa inaan u waadixiyo waalidiinta waxa ay leeyihiin hadda May 4teeda iskuulkii bil baa ka dhimane haddana ma lagu laabanayaa hadda ka hor cajalad baan duubo idiin sheegay waxaweye waxaan si tartiib ah oo baby service ah ayaa informationka dadka loogu sheegayaa laakiin idinka diyaar u noqda ilmaha sanadkan inay guriga ay u badan yihiin inay wax ku dhigtaan marka macallimiinta la xiriira caawimaad haddaa u baahan tihiin dadka la soo xiriira wixii wax idin dhaabo information soo waca insha allahu tacaala meelaha aad aadi kartid waxaa soo qabsan kartid inta uu socdo amarkan waxa waaye dukaamada waad aadi kartaa waxaad kasoo gadan kartaa daawooyin waad soo qabsan kartaa gaas waad kusoo shuban kartaa gaarigaada waxyaabaha muhiimka ah deriskaada ama qof family ah u baahan yahay waad usoo qaban kartaa waa hadday u baahan yihiin haddaa dhakhtar ballan leedahay ama farmashi aad kasoo qaadanaysid daawo delivery oo kale haddii aad soo qaadanaysid ama restaurantyada wax aad ka order garaysid waad socon kartaa bushkuleetaad wadi kartaa meelaha natureka ah oo adiga dabiiciga ah ku socon kartaa taas waa inta waxa aad samayn kartaa lagama celin karo waaye mid oo governorka websitekiisana waadax ku ah waxaa waaye dadka jooga guriga markii la dhaho problema marmar dhaco haddii aad safe aadan dareemeynin guriga waad ka bixi kartaa ama 911 baad u wici kartaa taas waxa waaye waa markii naftaada ay khatar ku jirto waalidiinta maxay samayn karaan ayaa hadda meesha taalo waxa ay samayn karaan hal iyo laba lama dhihi karo laakiin hadda inta practicalka oo aad samayn kartaan oo wanaagsan waxa waaye in qof aad u xil saartaan inuu banaanka aado ama alaabta kasoo qaado ciyaalkoo kale cuntada waxaa laga yaabaa in la dhaho cuntada iskuulka marka la siinayo waa in la arko taas waa daruuri ciyaalka waa inaad kala hadashaa guriga jooga maxaa loo jiri sababta ka dambeysa maxay tahay keliya waryaa ayaan la bixin hala joogo keliya ma aha sababtu maxay tahay meel walbana nadiifiya oo disinfect ka dhiga meelaha ma arkin oo albaabada la taabanayo qofka banaanka alaabta kasoo qaaday markuu soo galo lugihiisa kan yani sanitize ku sameeya disinfect ku sameeya goolka muhiimka ah oo waxaan loo sameeyey labadan isbuuc waxa waaye in waqti la siiyo nidaamka caafimaadka dadka ka shaqeynaya isbitaalada waqti ay ku diyaar garoobaan infectionkan inuusan faafin oo la joojiyo hadda u fiirso lama dhihin infectionkii ama dadkii yaraanay lama dhihin dadka way soconayaan laakiin waxay
waxaa yaraanayo in dad badan hal mar ay wada xanuunsadaan. Hadda ka horna waan idin sharxay. Hadda marka waxaan idinkugu celinayaa waxa waaye sida muuqato haddii wixii hadda naloo sheegay la raaci waayo, waxaa laga yaabaa nolol badan iyo dhibaato badan inay dhacdo. Wadamo badan oo ruleska aan laga raacin hadda social distancing in la sameeyaa la rabaa. Qofka inuu 6 tallaabo ku jiro. Anaga waa isku dhownahay mar walba, waa isla hadalnaa. Taas lama ogolo keliya ma ahane, xataa hadduu governorka kuu sheegin your health ya ku jira caafimaadkaada, inaad ka fogaatid, qofna gurigaada uusan soo booqanin. Markaa isla hadlaysaan qaraabada wax walba ha ahaada, inaad kala dheeraataan, waxaana caafimaadkiina ku jiro. Kasoo qaad sida dab holcayo kale waaye, dab looma dhawaado, waa laga sikadaa. Sweden wadanka hadda la dhaho 6 qofood oo Soomaaliya ku dhimatay. Waxaa hadda akhbaaraadka sheegayaan in dadkii isku dhadhow yihiin ayaga ay iska qaadayaan, sababtoo ah haddii aan waxaan serious laga dhigin dhibka wuu sii badanayaa. Talyaaniga hadda dhibka kale hadda oo hadda la xiriira waxaan oo caafimaadkii, nidaamka caafimaadka iyo dadka dhaqaatiirta diyaar garoobay loo leeyahay waxay tahay inta sariir ee taalo hadduu qof intaasoo qofa soo seexata maanta way yartahay la yiri 300 waa ka yartahay Minnesota. Waxa loo diyaarinayaa xataa waxaa laga yaabaa meelaha banooniga lagu ciyaaro istoodimiyada iyo hoteelada in lasii diyaariyo isbitaal ku meel gaar ah laga dhigo inta muddadan la leeyahay guriga yaan laga bixin. Ayagiyaa kusii diyaar garooway micnihii waxaa waaye waaba la dhimanayaa lugahood noo tootoosan aan dhimano waa la socdaa. Ilaahay subxaana watacaala hanoo kaalmeeyo. Wadanka Talyaaniga hadda mashiino waxaa jiro oo ventilators la dhaho oo markay dadkan soo xanuunsadaan oo cudurkan uu ku dhaco lagu xiro. Waxay dhaheen 80 jir iyo wixii ka weyn yaaba lagu xirinba, sababtoo ah looma haayo camal. Marka u fiirso hadda dhibkaas intaasoo boqolaa hal maalin dhimanayso. Intaas maxaa keenay? Dadkiyaa isbitaalada iska wada aadeen, kii oo hergeb haayo aan asaga ahayn xataa waa isku sii daaranayaan. Marka ilaahay hanoo kaalmeeyo. Ilaahay subxaana watacaala haddaan dhimanana jannada hana geeyo, laakiin fadlan aan dadaalno. Runtii dadka haddaa aragtid mashiinadaas lagu xirayo se u xiiqayaan sakaraadkii inuu saaran yahay moodaa. aad buu u dhib badan yahay cudurkan. Neeftu dadka aad ugu dhajinaya. Ilaahay hanoo kaalmeeyo, aan ducaysano insha allahu tacaala. Ramadaankana ilaahay ma arkino ilaahay hana gaarsiiyo anagoo caafimaad qabno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.